وبرنامجكii laba magaalo waliba xalqadii saddexaad waxaana markaan ku soo qaadan doonaa laba magaalo oo dhacaan dalalka Spain iyo waliba Brazil oo kala ah magaalada kubadda caanka ku ah Barcelona iyo waliba magaalada Rio de Janeiro. Barcelona waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Spain waxayna dhacdaa waqooyiga bari ee Jasiiradaha Iberia waana mid saaran badda Mediterranean-ka una dhaxaysa labada webi ee loo kala yaqaano Rio Meridiat iyo Disas waxayna sidoo kale 160 kiiloomitir ka fog tahay buuraha silsiladda ee Pyrenees. Marka la eego tirada dadka, Barcelona waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Spain oo waxaa ku nool inta badan 1 milyan oo ruux, balse marka hareeraheeda xitaa la eego tiradu waxay kor u dhaafaysaa 5 milyan oo ruux. Haddii ay Madrid tahayna caasimadda iyo magaalada ugu weyn Spain, Barcelona waa xarunta ugu weyn iyo xarunta ismaamulka Catalonia ee madax-bannaanida raadinaya. Ismaamulka Catalonia wuxuu ka kooban yahay 4 gobol oo kala ah Barcelona, Girona, Ceuta iyo Tarragona. Barcelona ayaana caasimad u ah waxaana looga hadlaa luqadda Catalan-ka marka la isgarab dhigana luqadaha Faransiiska, Talyaaniga iyo Isbaanishka. Waxay luqadda Catalan-ka u egtahay luqadaha Faransiiska iyo Talyaaniga. Dadka ku hadla luqadda Isbaanishka ma fahmi karaan Catalan-ka, balse dadka ku hadla Catalan-ka way fahmi karaan Isbaanishka maxaa yeelay iskuulada ayaa loogu dhigaa. Dadka ku nool Barcelona intooda badan waa Catalans iyo dad ka soo jeeda Spain-ta kale, balse sidoo kale waxaa ku nool in ka badan 230,000 oo ruux oo daafaha caalamka ka soo jeeda sida Ecuador, Argentina, Colombia, Ukraine, Romania, Morocco, Nigeria, Senegal iyo in yar oo ka soo jeedaan dalka Pakistan. Magaaladan waa mid taariikhi iyo marxalado kala duwan soo martay. Roomaankii ayaa dhufays ka dhigteen qarnigii 15 ka hor taariikhda miilaadiga, kadibna waxay qabsadeen reer galbeedkii ku soo hidoodeen Jasiiradaha Iberia bilowgii qarnigii 5aad. waxayna muslimiintu Barcelona furteen qarnigii 8aad gaar ahaan sanadkii 801 miilaadiga, balse waxay ku laabatay xurkigii Charlemagne. waxayna mar kale muslimiintu furteen sanadkii 985 miilaadiga waxaana furtay Maxamed bin Abi Caamir. waxaa Barcelona la burburiyay 1714 waana markii ay socdeen dagaaladii Isbaanishka, waxayna noqotay mid hoos tagtay imbilaadooryadii Faransiiska gaar ahaan maalmihii Napoleon. waxaa ka jirta maalinta Saint Jordi oo meelo kale caalamkana ka jirto, waana maalin ay dadku isguddoonsiiyaan ubaxyo cas iyo buugaag. National Geographic wuxuu ku tilmaamay xeebta Barcelona midda ugu wacan ee laga helo magaalo. waxaa la nashqadeeyay 1992 si loogu qabto ciyaarihii Olombikada ee sanadkaas. Barcelona waxay 1999 noqotay magaaladii ugu horeysay ee heshay biladda Rio Gold Medal ee dhanka nashqadaha dhismaha lagu bixiyo, waxaana bixisa boqortooyada Ingiriiska. Porto Alegre waa jidka ugu saxmadda badan Barcelona haddii uusan ahayn midka ugu saxmadda badan Spain. sidoo kale waxaa ku yaal goobaha ganacsan ee ugu qaalisan dhanka sicirka. dhanka kale, jidka caanka ee lagu magacaabo Canambas waxaa ka taagan taalada Christopher Columbus ee weliba tilmaamaya dhanka ay Ameerika xigto. Barcelona ayaana ah magaalada uu ku fikirayay Gustave Eiffel inuu ka dhiso burjiga ama taawurka Eiffel ka hor inta uusan ka hirgelin magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Rio de Janeiro, si fududna loo yiraahdo Rio, waa magaalada labaad ee ugu dadka badan dalka Brazil, waxaana ka dad badan oo kaliya São Paulo. sidoo kale Rio de Janeiro waa magaalada saddexaad ee Koonfurta Ameerika ugu dadka badan, waxaana ka horeeyaan oo kaliya São Paulo iyo Buenos Aires oo ah caasimadda Argentina. Rio waxaa guud ahaan ku nool in ka badan 13 milyan oo ruux, waxaana lagu tiriyaa magaalooyinka ugu quruxda badan caalamka.
magaceeda ah Rio de Janeiro waa webiga Janaayo waxaana la aasaasay 1965 miilaadiga markaas oo ciidankii Boortaqiiska dhufeys ka dhigteen halka ay dhacdo maanta magaalada Rio waxay ku taal 163 ilaa 1960kii ahayd caasimadda Brazil waxaana markaas kadib caasimadda Brazil noqotay magaalada Brasilia oo la aasaasay 2 Abriil 1960kii si ay u noqoto caasimadda dalka balse Rio waxay caasimad u tahay gobolka ay dhacdo oo magaceeda wata ama gobolka Rio de Janeiro ee dalka Brazil waa magaalo dalxiis oo si xooggan uga qayb qaadata kobaca dhaqaale ee Brazil waxayna leedahay goobo badan oo soo jiita dalxiisayaasha waxaa soonaha koonfureed laga helaa mid ka mid ah xeebaha ugu caansan dunida oo lagu magacaabo Copacabana waana xeeb qaabisha dalxiisayaasha ugu badan ee galaan magaalada Rio sidoo kale waxaa jiraan xeebo kale oo ay dalxiisayaashu booqdaan sida xeebta Ipanema iyo xeebta Lido waxaana Rio 2016kii lagu qabtay ciyaarihii Olombikada balse meesha ugu caansan magaalada waa sarabka lagu magacaabo Cristo Redentor waana astaanta magaalada iyo diinta Kirishtaanka ee dalka Brazil maadaama dalka Brazil uu yahay dalka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee haysta madhabka Kaatoolika ee Kirishtaanka waxaa sanadkan dhismihiisa la dhameeyay 1931 waxaana laga dhisay dusha sare ee buurta Copacabana waxaana jira tareen mara buurta dusheeda waxayna dadka raaca tareenkaas u suurta gashay inay dusha sare ka arkaan magaalada Rio muuqaalkeeda guud waxaa ka jira magaaladan dabaaldeg sanadlaha oo lagu magacaabo Rio Festival Party waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay maharajaanka ugu weyn caalamka maadaama malaayiin qofood isu soo baxaan isla markaana 1 milyan oo ruux ay u safraan Rio si ay u daawadaan maharajaanka waxaana lagu soo bandhigaa ciyaarta samba magaalada Rio waxay leedahay keedka ugu weyn ee laga helo magaalo waxaana lagu magacaabo Tinjoga waana kan soo jiidata 2 milyan oo dalxiisayaal sanadkii wabillahi tawfiiq